السلام عليكم سوري يا صاحبيال meel kasta oo ka joogtiin dunida daafeeda magacaygu waa Ahmed Faarax halka nagala socotiina waa Himila Media Production iyo waliba Himila High School صاحبيال halkan waxaan ku bar doonaa maanta cashirkeennii shanaa ama lesson 5 oo ah computer basic hadaba cashirka sanaad ama lesson 5 waxaan ku bar doonaa cashirkan sanaad ama lesson 5 kan waxaan ku bar doonaa lixdan qodob waxay kala yihiin qodobka koowaad how to save data sida loo save garaya data marka lagu leeyahay waa tan oo kale xogtaan oo kale sida u save garay lahayd hagaag waan bar doonaa wuxuu kala yiri how to select save location marka data save garay sida loo doortaa meesha aad ku save garay waxa ku save garay qaybta dhexe ee computerka sida local disk C local disk D iyo markasta waxa kugu qoran mase waxa ku save garaynaysa desktopka waan kala bar doonaa hagaag qodobka saddexaad wuxuu yahay how to word document PDF by using Word adigoo warqadan la yiraahdo Wordka oo xog ugu qoran sidaad ugu bedelaysaa PDF aa loo yiri adigoo isticmaalayo wax kale isticmaalaysa waxa isticmaalaysaa by using Word adigoo isticmaalayo warqada loo yaqaan Wordka sidaad ugu bedelaysaa PDF waynu bar doonaa ayadana sidoo kale waxaan bar doonaa waxa loo yaqaan how to shortcut control waa maxay shortcut-ka ay leedahay control xarafkan la yiraahdo control shortcut-kiisa waan bar doonaa A to Z laga bilaabo A ilaa Z waan bar doonaa hagaag qodobka sanaad waxaan ku bar doonaa waxa loo yaqaan computer keyboard information keyboardka computerka arkaysid iyo waxyaabaha uu ku kooban yahay wax walba waxa ay ku saabsan yihiin waanu bar doonaa hadii Ilaahay idmo waxa dhigi doonaa computer keyboard information sidoo kale qodobka lixaad waxaan ku bar doonaa tabs mouse-kan computerka oo aan isticmaalayno qaybaha uu ka kooban yahay mouse-ka ayaan bar doonaa sidoo kale waxaan bar doonaa also mouse is used waxa loo isticmaalo mouse-ka ayadana waan bar doonaa saaxiibayaal hagaag hadaba waxaan aadi doonaa qaybta baraatikada qodobka koowaad oo aan maanta bar doono ayaa muxuu yahay how to save data sida loo save garaya tusaale ahaan waxaan rabaa warqad cusub oo noo soo furaa Word oo kala hagaag warqadda markaan saan u soo furano waxaan noogu qoraynaa xogaa ku qoraynaa tusaale ahaan waxbaa ku qornay warqadda markaan ku qorno hadda dii warqadan iska xiro oo aan close ka iraado wixii ku qornay talow ugu tagi doonaa bal si aan u ogaado inaan ugu tagi doono in kale hal mar haddana mar kale aan warqadii soo furo hagaag waxaa ujeedaa waxa ay soo furantay warqad bannaan aysan waxba ku qornayn bal mar kale warqadan waxaa ku qori doonaa xogta marka ku qorana waa save doonaa bal inaan xogta ugu tago iyo in kale waayahay assalaamu calaykum waa kala ka qoray marka ku qoro waxaan leeyahay halkaas fayltaas ayaan ku dhufanaya saaxiibayaal fayltaas marka ku dhufto waxaan leeyahay save hagaag bal warqadan iska xidho marka warqadan iska xidho aadana soo furo maxaa ku qoran warqadan assalaamu calaykum aan ku qoran xogtan way save garaysan soo ma marka laba option ayaad wax ku save kartaa inaad markaad xogta aad qoratid aad sameeydo wax loo yaqaan save oo meesha aad save ka tusay saanad assalaamu calaykum soo kuma qorno markuu qoran inaad laba option ku save kartaa inaad tiraadid halkaas faylka aad kadibna aad tiraadid save taas ka sii doorato xogtaad sidaan kugu save garaysan tahay oo haddii aad warqadan aad iska cancel gareyd ama ayadana iska xirtid marka soo furtid assalaamu calaykum way ugu dhax qornaa doontaa waan gartay waxaa jirto qaab kale oo aad soo dooranaysid save location waxa la yiraahdaa save location halkan qodobkan labaad muxuu ku yiri how to select save location warqadan anaga aan save garaysan xagee noogu save inta warqadan aan save garaysano assalaamu calaykum noogu qorneed xagee noogu save garaysanta warqadan xagee noogu save location waxa loo yaqaan warqad marka saa u timaad waxa ku dhufanaysaa halkaas faylka waxaad leedahay save as oo save as isticmaal soo marka waxa leedahay waxa loo yaqaan save as waxa ku dhufanaysaa browser marka u dhufatay hadda warqadan anaga waxay noogu save garaysneed local disk C uma rabay waxa u raba desktop ka soo doorana kadibna waan ku save garaysanaa warqada marka magaca u bixina waxa leeyahay save
test ya dhaha save test markaa iraad bal aan tagno desktop computerka oo warqadaas aan ka fiirin inay noo saaran tahay in kale warqada ku qoran tahay save test waa tana saaxiib waxay reer raal noqdo waxaan save test ku qoray waa warqadii aan casharka ku diyaarinayo save test ku qoray ayadana desktop ku save tan markaa magac kale u bixinaa magac kale ayadana u bixinaa save as taga browser ka si taga desktop ka dooranaa desktop markaa ka doorto warqada magac kale u bixinaa waxaan leeyahay tusaale ahaan علي علي هجاج سيف علي هجاج صاحب يلا marka waxaan tagay desktopka warqadan ay hadda ay u qoran tahay cali oo jeedin aan soo furaa bayna waxa uu tagno oo ayada noogu qoran aan waxa karo inay u qornaato assalaamu calaykum waatana hagaag waxa u jeedaa warqada maxaa ku qoran assalaamu calaykum markale warqad si loo seefa aynu isla aragno waxa tagay lesson ka soo furaa casharka ay maanta casharkana lesson 5 ka soo furaa new Microsoft warqadan ayaa soo furaa warqada asla ay soo uma qorno waa ka tiray waxa u bedelaa wa calaykum salaam u bedelaa sidoo kale waxaan leeyahay safe aan leeyahay calaykum salaam taan safe aan hada wax yar salaam wa calaykum salaam soo aan qorin hadii aan iska xiro hadda warqadan oo safe dhaan iska xiro ee marka la aan soo furo ma wa calaykum salaam uu soo bixi doonto ma assalaamu calaykum adinka idin daaytaas wa calaykum salaam ay uu soo bixi doonta ma assalaamu calaykum hagaag وياي بل aynu fiirina marka isla fiirin dad baa waxay leeyihiin waalaikum salaam soo bixi doonto dadna waxay leeyihiin waxa soo bixi doonto assalaamu calaykum waxa soo bixi doonto warqadan dad iska xiro marka haduu soo furo assalaamu calaykum sababta waalaikum salaam taa ma baa aan seefnaan soo ma aan soo furo warqada aan soo furo assalaamu calaykum subax soo jeed assalaamu calaykum hawada ku cunaa marka waxaan leeyahay waalaikum salaam kadibna waxaan leeyahay control s ama save control s ama save ayaa leeyahay save ayaa leeyahay hagaag واسحرها ورقة عمر هذا ورقة مركز صفر وحارب عنيقة أنا يقول صفر أنت وعليك السلام وعليك السلام أنا يقول صفر ما ماشي أقول جدا وعليك السلام شو موجود وعليك السلام أي ورقة يقول صفر هذا وجه ده وكا سلوك ورقة ما حيقول قرن حيقول قرن علي صوما ما حيقول قرنا وانبدلها فاتنا ورقة علي يقول قرن صوما وانبدلها برنامج كده بدلها عصمنا مركز برنامج كده كسكسو بدلي معي لسون 5 كده حتى سلام نيم ميكروسوفت صفرة نيم ميكروسوفت مركز صفرة هالكاس فايل تساقط فينا كده بنو حكي دورنا سيف اس بروسر عكسي دورنا بروسر كده بروسر عكسي دورنا ديسكتوب فايل نيم كعادي دونا حاشي أيان دي دونا كده بن سيف أيان لي سحب يلا مركز سيف ترى تنا ورطة ورقدنا اسكحر ورقدنا اسكحر شالها هدي ورقة سكير هادو مركز صفرتي على يا قوسك حسن عدونا ورقة ما يكسو قدام بين ورقة كلا كسو دول بفكم دوتا مركز فاش دي دونا ورقة صفر أنت ورقة دي ما مركز عارف هدينا ممكن لو يجي حاشي الريدنا حاشي وكنا حاشي هاي حاشي مركز صفر وعليك سلام نكسو قرنا تعرفه هاي وكنا حتى واحد برنا سير ورقة لو سيف أو إن هذا ورقة تكتب حطه هو قرن فايل كسكو دفت السيف تري واسير ورقة لو سيف هذا صورت كذا أنا وعبرة دونا sidoo kale marka aragtid meesha aad ku save marka aragtid inaad doorato location save as sa ku dhufana save as kadibna xagga soo dooranayna browserka ka soo doorano hadii aad rabtid local disk si in lagu save local disk si aad dooranay hadii aad rabtid disk si inaad ka taamar ka soo doorato disk si aad kadib hadaa desktop u rabtid hadii maartay documents aad rabtid folderkan download ama waxyaabo la dijiday aad rabtid hadii aad rabtid folderkan pictureska folderka aad rabtid markaas ayaa ka soo dooranaysa حتى تلفون كاغا ku save gareysan kartaa waxa dhigi kartaa computer-ka inta iga deed taleefankayga ay ugu save garay hayaag saabiyaad qaabka warqada loo save file iyo waliba si loo dhiganayo meesha location-ka ama saa u soo dooran lahayd warqadaada meesha dhigi lahayd ay desktop ay ahayd meel kaleba waan baranay hayaag waxaan noo xigo qodobka saddexaad su'aal saddexaad maxay tahay su'aal saddexaad waxay tahay aynu bal wada ogaanay aan soo furno lesson 5 iyo warqadeena casharka oo noogu diyaarsanaa وان قرتي سؤال سدحايا وحده عشركان هذا نو سيفن عشركان هذا انا ورقدا نو قرن wuxuu noo qoran yahay waxa loo yaqaano wuxuu noo qoran waxa loo yaqaano word noo qoran yahay waxa rabnaa inaan u bedelno PDF sidaad ugu bedel lahayd horta warqada PDF ka ay qaabku agtaa waxaan filaa waa isla naqaanaa tusaale ahaan warqad PDF hadda ayaan soo furaa
waxaan tagaa folderka himila tagaa hagaag waa kana warqadan oo kale hadda waa PDF warqadan oo kale hadda PDF waay warqad markay PDF tahay waxba kuma dari kartid inaad maartay aad sharaxdid mooyaane wax kale kuma aad dari kartid tusaale hadda warqadan waa kana PDF waa oo jeeda buugga hadda wuxuu u qoran yahay slide ahaan ama PDF ahaan ayuu u qoran yahay way jirtaa qaab loo maartay loogu soo furo word document oo wax looga bedelo insha Allah casir kale ayaa ku hadli doona markay PDF ay tahay waa un sharxi kartaa mooyaane waxba kale kuma dari kartid waa sharxi kartaa oo qalinka soo qaad waa dhigi kartaa color gaar ah ugu yar waa dhigi kartaa saartu waa dhigi kartaa hagaag marka warqadda qaabka aad PDF ahaan ugu bedeli lahayd ayadana waan baranaynaa oo hadda warqadda annaga hadda maanta oo casirku noogu qoraya ayaa waxaa u bedelaynaa PDF hadaba sidaa ugu bedelaa PDF soo dhawow waxaad samaynaya faylkaas ayaad ku dhufanaysaa fayl markaad soo doorid waxaad leedahay save as ayaad ka dooranaysaa kadibna waxaad leedahay browser horta warqadan browserka ayaan soo kici doonaa kadibna waxaa leenahay horta waxaa noogu seeftaa desktopka location horta waa soo dooranay location markaad soo doorid warqadda maxaa noogu qoran lesson 5 noogu qoran sooma halkaan hoose maxaa ugu jeedaa word document aad ku qoran sooma gadaal u raac falaartan soo fur falaartaas soo fur hoos u socone hoos maxaa ka raadinay meel ku qoran PDF hadda waa ka aniga waa joogaa PDF waan taagana hadda anaga warqadan PDF iraado waxay ii noqon doontaa PDF ahaan ayaa lagu save garay doonaa warqadan oo waxaa lagu save doonaa desktopkiga iyadoo PDF waa tan hadda warqad waa kana hadda waxba kuma dari karo warqadan waxba muujeedido kuma dari karo waa sharxi karaa mooyaan waxba kale kuma dari karo waa ka inaan zoom soo iraa waa awooda in maartay aan maartay sharxana waa awooda laakiin se waxba kuma dari karo insha Allah cashir kale ayaan uga hadli doonaa iyadoo PDF qaabkii aad ugu bedeli lahayd Word ilaa hadda waxaan soo baranay iyadoo Word qaabka ugu bedeli lahayd PDF ayaan soo baranay saxbiyaal waxaan filaa waan isla fahanay bal hal mar dii aan ku celiso warqadda hadda waa tan waa Word hadda waa kana su'aasha hadda koobaad how to save data location waan tiri karaa hadda waan tiri karaa su'aasha waan cuni karaa waa ujeedaa kambasadii soo dhiso su'aasha hadda waa tiri karaa laakiin se markaa PDF ka dhigo hadda Word document ii joogto soo markaa PDF ka dhigo waxba kama tiri karo waxna kuma dari karo tusaale ahaan markaasaa PDF ugu dhigaa PDF markaa rabtid inaad ka dhigatid bal hal mar iyadoo casri caadi ah aan qoro aan warqadda markaa rabtid inaad PDF u bedesho fast one maxaa samaynaysaa سامش أوجد fast one ugu horeyn select file ugu horeyn waxaa soo doortaa file haddaba file saa usoo doora file markaad soo doorto waa ka file halkaa tagi hay next muxuu noogu xijiyey file waan soo doornay soo ma muxuu noogu xijiyey file wuxuu noogu xijiyey inaan soo doornay file wuxuu noogu xijiyey wuxuu yidhaahday fast one select file then select save as ayaad ka soo dooranaysaa hay next ama maxaa noo xigay wuxuu noogu xijiyey next ku select save location warqadda meesha lagu save soo dooro hagaag next select save wuxuu ku yiraahdaa next wuxuu ku yiraahdaa hagaag muxuu yiraahdaa next waxaa noo xigay select word arrow okay muxuu noogu xijiyey select PDF fast one muxuu noo yiraahdaa waxaa soo dooranaysaa faylka kadib waxaa kasii tegaysaa save as maxaa kasii tegaysaa save location maxaa kasii tegaysaa next wuxuu arrow macnaha falaarta hoos u jeeda ayaa furaysa oo PDF ka dooranaysaa kadibna waxaad dooranaysaa PDF noogu daba meesha bal hadda waa sameynayna ugu horreyn waxaan soo furaynaa file kow maxaan dhaafay marka soo furto waxaa kasii tagtaa save as haye waxaa kasii tegaynaa meesha loo yaqaano save location meesha warqadana ku safeynaa browserka ayaa ku soo furayna
kadib waxaa dooranaya desktop warqadda hadda aniga lesson 5 ay u qoran waxaan dhahaa PDF dhahaa PDF tusaale ahaan PDF dhahaa warqadda magaceeda dhan waa iska bedela hay stepkooda soo maro failka soo doortay laba waxaan soo doortay save as soo doortay saddex waxaan soo doortay save location saddex qodob mara sooma qodobka afraad oo ugu dambeeyay ayaa wuxuu yahay si warqadda ugu bedel PDF marka muxuu yiraahday waxaa soo furtaa arrow PDF falaart ay leedahay word documentiga war falaart ay leedahay arrowgaas soo hadaba falaart waa taa falaarta hoose waa hay kadib waxaa ka dooranayo PDF haga PDF geeyaa leeyahay waa ka PDF hadda waa joogaa PDF waan joogaa hadda kadibna maxaa leeyahay save waa ku save gareynaa hay maxaa ugu sabax desktop-ka taga waxaan ka raadinaa warqad ay ugu qoran tahay PDF ka raadinaa warqad ay ugu qoran tahay PDF ayaan ka raadinaa desktop waa tana hay warqadda aan soo furno maxaa noogu jira casirkeena maanta ayaa noogu dhex jiro saaxiibayaal waxaan soo baranay saddex qodob waxaan noogu xigo qodobka afraad oo ah how to use shortcut control A to Z shortcut-ka ay leedahay A to Z anagoo isticmaalayno xarafka loo yaqaan ama adeegsanayno buttonka loo yaqaano control ayaan baranaynaa waaya bal marka hore casirkaas kaas waxaan ka hormarinaynaa kan loo yaqaano computer keyboard case information maxaa yeelay computer keyboardkiisa markaa kala barat ayaad waxaa bar kartaa waxa loo yaqaano control waxa loo yaqaano markaas ayaad bar karaysaa marka waxaan samaynaynaa computer keyboard ayaan marka hore dul tegaynaa aawo cashirkeena lesson 4 raalli ah saaxiibayaal lesson 5 qodobka koowaad ayuu annaga waxaa noo ahay waxaa loo yaqaano control shortcut ayuu noo ahay qodobka koowaad laakiinse hadda waxaa baran doonaa computer keyboard case information saaxiibayaal keyboardka noocaana markaa dhex joogto keyboardkan markaa dhex joogto waxay haddii aad zoom noo soo yiraahdo waxaa ujeedaa wuxuu ka kooban yahay waxyaabo badan oo kala duwan hagaag function case dii wax lagaa weydiiyo waa F1 ilaa F12 waxaa jiro waxa la yiraahdaa number case markuu lagu yiraahdo waa intaan ka bilow number 1 waxaa ku geedaa 0 ama 0 ka soo bilow number 1 ku keen teerta samee waxaa la isku yiraahdaa number case ayaa la isku yiraahdaa intaan number case ayaa la isku yiraahdaa oo qaybta numberska maxaa adeegsan doonaa number case qaybta F1 ilaa F12 maxaa adeegsan doonaa function case waxaa noogu xigo waxa la yiraahdaa tab key falaartan labadan falaarood isdhaafsan waxaa la yiraahdaa tab key soo kale mar waxaan arki doonaa u isticmaal doona sida muuskiyo kale mar waxaa u isticmaali kartaa qaybtaas tabka mar waxaa u isticmaali kartaa space u isticmaali kartaa tab key ayaa la yiraahdaa waxaa jiro waxa la yiraahdaa caps lock maxaa la yiraahdaa marka caps lock key badhanadan iyo waxa maanta loo isticmaalo ayaan kala baran doonaa badhanada horta waa inaad marka hore kala taqaanid bal badhaniskan waxa ay ka turjumayaan waa inaad kala barid hagaag caps lock key ayaa la yiraahdaa caps lock key waagar caps lock key maxay qabataa ayadana waan baran doonaa waxay noo qabataa waxyaabo badan farta markaad wax qoraysid tusaale ahaan wax yar caps lock key hadii aan wax yar aan dul istaago waxaa jiro waxa loo yaqaano caps lock key waxaan qoray casirka hadda aan qoray waxaa rabaa inaan ka dhigo far weyn ama small waxaan xukumaa markaas caps lock key hadda waxaa ka dhigay large Ahmed Alnay Ahmed maxay u qoray large wada qoray waa ujeeda haddana caps lock key ayaa xira waxaan leeyahay Ahmed wuxuu ka dhigay small waaya saaxiibayaal caps lock key marka waxa loo yaqaan shaqadaas ayuu inoo qabtaa oo shaqadaas ayuu noo qaabilsan waxaa jira waxa la yiraahdaa shift key ayadana shortcut-ka inta badan markaa isticmaalay waa adeegsan doonaaye sidoo kale casirta programming markaa adeegsanay inta u badan shiftida waad isticmaalaysaa waan baran doonaa ayadan waxaa jira waxa la yiraahdaa controltan maanta waa baran doonaa tan controlta maanta ayaan baran doonaa marka lagu leeyahay control A control B control C control Y control D control Q wax markastaan waa baran doonaa ayadana qaabka loo isticmaalo marka control K iyo waxa ay qabato waan baran doonaa waxaa jiro waxa la yiraahdaa fan K waxa la yiraahdaa jiro fan intaas fan laga soo gaashay fan K waxa la yiraahdaa ayaa jiro waxaa jiro waxa la yiraahdaa Windows K laartan waa ujeedaa Windows K meesha alt K waxaa laga soo gaashay letter case alt K waa tana hagaag waxaa jiro badhankan maxaa loo isticmaalaa badhankan waxaa la yiraahdaa space inta badan waa arki doonaa asagana insha Allah waxaa jiro waxa la yiraahdo sample
sample case calaamada waa calaamadaha kala duwan haddii ay ahayd question mark haddii ay ahaaleed mataqaanaya haddii ay ahaaleed mataqaanaya ad haddii ay ahaaleed hash iyo sample case ayaa la yidhahda ayadana waan bar doonaa waxaa jiro waxa la yidhahda arrow case falaarahan afartan falaarood waa ujeedi ayaa waxaa la yidhahda arrow case falaartan midigta ayaa waxaa la yidhahda right arrow tanna waxaa la yidhahda left arrow falaartan hooseeya waxaa la yidhahda down arrow tan korana waxaa la yidhahda up arrow hagaag saaxibayaal waxaa jiro waxa la yidhahda ndk meesha ay noogu qoran tahay nd markii aad rabtid warqadaha hadda ku dhex jirtay oo kale ama maaragtay programka ku dhex jirtay meesha u horeydaa joogtay ama dhex bartanka oo kale joogtay waxaa rabtaa marka inaad tiraad waxaad igeedaa meesha u dambeyda program waxaad taabanaynaa falaartan loo yaqaano ndk ayaad hal mar click siinaysaa aad dhag siinaysaa dhag markaad siidid waa adigoo taabanaya gacantaada ay wax ku taaban doonta qaybta keyboardka oo hardware ahaan ayaa isticmaali doonaaye markaas muxuuna geli doonaa qaybta u dambeyda waxaa jiro waxa la yidhaahdo back down waxa la yidhahda jiro back down markii ay rabtid back down inaad hoos u socdo back down markay rabtid ayadana waan bara doonaayo back down ayaa la yidhahdaa oo hoos inaad u socdo ayada ayaan xukumi doona waxaa jiro waxa la yidhahda page up page up page up hadda page down oo soo barana sooma waxaa jiro page up k waxa la yidhahda page up k ama enter k waa bara doonaa ayadana sidoo kale waxaa bara doonaa waxaa la yidhahda enter k enter dheh click dheh arrow dheh control dheh shift dheh waxaasoo dhan waan wada bara doonaa insha allah shortcutkana waaba ku arki doonaa haddii uu leeyahay waxaa jiro waxa la yidhaha home k waxa la yidhaha ayaa jiro home k falaartas homeka marka ku dhufat maxuu xogoo ku geynaa falaartas homeka marka ku dhufat wuxuu ku geynaa shaqada aad hayd bilaawgeedi ayuu ku geynaa hagaag waxaa jiro waxa la yidhaahdo space k labadan waa isla mid tan haddaysa kuu shaqaynayn tan ayaa kuu shaqaynaysa space waa isla mid space waxaa isdhahin labadan space ma laba shaqo kala duwan ayay qabanayaan labadooda waa isku shaqo waxaa loogu talagalay macnaha haddii aysan mid kuu shaqaynayn inaad ta kale isticmaasho hagaag waxaan bara doonaa waxa loo yaqaano del k ama insert k labadaba way jiraan haddii wax kuu qornaa ama folder kale aad soo dul istaagtid file oo kale aad soo dul istaagtid tusaale ahaan wax yar ayaan waxaan samaynaa oo tusaale ayaan samaynaa filekaan oo kale aan soo dul istaagay meeshan oo midkaan filekaan oo kale ayaan soo dul istaagay waxaan rabaa marka fileka inaan tuuro ayaan rabaa saas markaa dul istaag oo iselagta garay del aan leeyahay hadda maxaa taabtay dilleedaa taabtay oo waan dileeday marka deltaas ayaa la yidhahdaa oo waxaa la yidhahdaa del k hagaag del k waxay ku qabanaysaa in inta adhigi lahayd right click kadibna aad new kasii dooran lahayd kadib aad kasii dooran lahayd dileed halkaas inaad sameydid waxaa kaaga sahlay inaad dul tagtid aad keyboard kasoo isticmaala qaybta kore delta aad taabid waxaa jiro waxa la yidhahdo insert k ayadana shaqada ay qabato waan isla arki doonaa hagaag saaxibayaal hadda waxaan filayaa inaan fahnay haddiina la yidhahdo waxaa loo yaqaano su-aalaha hadii lagu weydiiyo oo lagu yidhahdo what is the function k waa maxay function k haddii lagu yidhahdo waxaa leedahay function k waxaa la yidhahda f1 from f1 laga soo bilaabo f1 ilaa f12 lagu geeyo f12 maxaa la yidhahdaa function k waa maxay hadii lagu yidhahdo what is number case hadii lagu yidhahdo number k waxaa kasoo bilaabay number 1 maxaa ku geynay number 0 number k intaasaa laisku yidhahdaa linekan oo dhan oo calaamadda aan saaray waxaa laisku yidhahdaa number k hagaag waxaa jiro waxa la yidhahdaa tab k labadan falaarood isdhaafsan oo keyboardka hadda computerkaaga aad ku aragtid waxaa la yidhahdaa tab k aa la yidhahdaa hagaag capslock k hadii lagu yidhahdo waa kana capslock k waxay noo qabatana waan baranay inay farta nooga dhigto small iyo inay nooga dhigto large far yar iyo far weyn inay nooga dhigto ama capital letter iyo small letter sidaa u taqaanidba waan bara doonaa ayadana shift k waxa la yidhahdaa shift k ayadana shortcutka marka inta badan waxa ku yidhaha programming isticmaalaya shift saas ayadana waan bara doonaa waxaa jiro waxa la yidhahdo control k shortcutka ayadana sidoo kale inta badan markaa isticmaalaya control k control saas control lambar hebel la qabo ama xarf hebel la qabo control balas aa maqli doontaa control balas hagaag waxaa jiro waxa la yidhaha fantan waxyaaba badan loo isticmaala jiro markaad bedelayso windows computerada qaar computerkan hadda la yidhaahdo computerkan la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa tushiba inuu yaa umalaynaa tushiba inuu yaa jeclahay markaad ka bedelayso windows fan ayaa isticmaalaysaa fan marka bal barnaamijkaad soo hadli doonaaye fankay carabka la yidhaha badanaa inta badan markaa windows isticmaalay ayaad maaragtay markaa windows bedelay ayaad isticmaalaysaa waxaa jiro alta
letter keys xarfo la yiraahdo oo alta ah altadan ayadana waa shortcut waxa loo isticmaalo waan bara doonaa sidoo kale waxaa jira space waxa la yiraahdo space badhankan weynka waxaan u isticmaalnaa inaan space ka dhahno hadda waxaan qoraynaa oo kale xogtaas aan qoraynaa waxaan rabnaa inaan space dhahno space xagaa taabanayna badhankan weyn ayaa waxaa siinaynaa kale oo aan taabanaynaa badhankan weynka ayaan taabanaynaa oo meel kale taabamayno sidoo kale waxaa taaban karta falaartas kale ayaduna waa taaban karta ayaduna waa la mid space kale waa ayaduna falaartas kale waa la mid waxaa ka dhigi karta space hagaag backspace adhe backspace waxaan hadda space aad tiriso ma spacegaadi ayaa tiraysaa backspace ayaa leedahay hagaag waayahay waxaa noo xigo waxaa loo yaqaano arrows falaarahan maxay ka turjumaya falaaraha waxay ka turjumaya qoraalkan hadda ku dhex jira soo ma waxaan rabaa inaan kor eego up arrow aa taabana up arrow falaarta kore ayaa taabana kor u socda soo ma jeed haddaan rabo inaan hoos aado down arrow falaarta hoos ayaa wada waxaan rabaa inaan bidix aado right arrow waxaan rabaa inaan midig inaan aado midig ayaa rabaa right arrow ayaa taabana haddaan rabo inaan bidix aadana left arrow waa kaa bidix oo qalinka u socdaa left arrow ayaa isticmaala waa kaa midigna right arrow hoosaan rabaa inaan aado down arrow koraan rabaa inaan aado up arrow waa kaa arrowska marka iyo falaarahaas waxa ay noo qabtaa ayaguna waa shaqada noocaas oo waxaa la yidhahdaa arrows keyboardka afartan falaarood ee arkaysa waxaa la yidhahdaa arrows ayaa la yidhahdaa hagaag xarafka waxaa jiro xaraf kaloo la yidhaahdo home key xaraf la yidhahda ayaa jiro isagana waa bara doonaa saaxib yaal horta ma inta waxaa uga soo gudbaynaa waxaa loo yaqaano computer keyboard information case information ya computer keyboard case information ti wax lagaa weydiiyo maanta waa taqaanaa oo adeer ma aqaan hadday dhahdin taas waan ku diriraynaayo ogaaw waa qodobkan afraad waxaan rabnaa marka qodobkan baalka afraad inaan usoo noqono oo ah computer control a to z shortcutka ay leedahay ilaa hadda waxaa baranay computer keyboard case information oo aan ku baranay qodobkan shanaad bal keyboardka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay aan hadda kala baranay hagaag bal marka aan shortcutka aadno shortcutka markaan tagno ayaan waxaa arki doonaa wixii maanta o dhan kuu sheegaya oo control iyo saas iyo waxaas oo dhan hagaag saaxib yaal shortcutka in hadda ujeedid ayaan filaa fast one ayaa kasoo bilaabaya ama control a waxaa weynaa control a waxaa loo isticmaalaa select all inaad xogtaada dhammaan helaha saartid ayaa control a loo isticmaalaa sidoo kale control b waxaa loo isticmaalaa bold ama waaweyn in laga dhigo control c waxaa loo isticmaalaa in la koobiyeeyo waxaa noogu xigo control plus d oo ah duplicate inaad ku sameeyid waxaa noogu xigo control plus e oo ah argument center size inaad qoraalka aad geydid bartanka inaad geydid waxaa noogu xigo waxa la yidhahdo control plus f oo ah find xogta aad qortay ama ku save garaysna markaa rabtid inaad raadido waxaad isticmaalaysaa waxaa loo yaqaano control plus f ama find waxaa noo xigo waxaa la yidhahda control plus g oo ah group and go to markaad group inaad aadid ama maaragtay inaad maaragtay meel kale kasii aadid waxaad isticmaalaysaa waxaa loo yaqaano control plus g hagaag waxaa jiro waxaa la yidhaha control plus h oo ah replace inaad qalinka aad geydid hadba goob inaad geey kartid waxa ku sahlayso waxaa loo yaqaano control plus h ayaa ku sahlaysa waxaa jiro waxaa la yidhaha control plus I oo ah italic ama chief ayadana waad bara doontiin soo baraatikeeya waxaa jiro waxa la yidhaha control plus j oo ah justifygaas ayadana waxa ay tahay waan bara doona waxaa jiro control plus k waxa la yidhaha hyperlink ayadana waan bara doonaaye waxaa jirto waxa la yidhaha control plus l oo ah argument left size macnaha qoraalkaaga inaad geydid bidix ama aad geydid midig waxa kuu suurta gelinayo waxaa la yidhahdaa control plus l control plus jna waad ku samayn kartaa hagaag waxaa jiro waxa la yidhaha control plus m markaad rabtid new slide inaad soo furtid adoo isticmaalayo warqadan powerpointiga presentation ama mawduuc ku diyaarinaysa waxaa kuu dhamaaday slide wax ku qoran mayda ayaa kaa buuxsamay waxaa rabtaa markaa slide kale inaad soo furatid waxaad isticmaali kartaa shortcutkan la yidhaha control plus m oo ah new slide haddii aad rabtid inaad soo furtid new pagena waxaan isticmaali doonaa control plus n marka aad rabtid inaad folder cusub abuurtid ama aad rabtid inaad warqad cusub abuurtid adoo warqadii hore ku dhex jira rabtaa inaad warqad kale aad soo furtid waxaad isticmaalaysaa control plus n waxa loo yaqaano haddii aad rabtid inaad furtid meel aad ku save gareyda warqadda aad rabtid inaad furatidna waxaad isticmaali doonaa control plus o oo ah open haddii aad rabtid inaad printing wax ku daabacdid oo warqadda aad u dirtid printing aad u dirtid inaad u dirtid haddii rabtidna waxaan isticmaalaynaa control plus b weliba waa b for pen ee maaha b for book waxaa u isticmaalaynaa bold
B for pen maxaa u isticmaalaynaa print ayaa u isticmaalaynaa hagaag saaxib sidaas u kala aqoonsan waxaa jiro waxa la yidhaha control plus q oo ah quit dhaqsala waxaa jiro waxa la yidhaha control plus r oo ah argument right side qoraalkan kuu qoran inaad geedid midig ama aad geedid bidix control plus r waa u adeegsan kartaa control plus k waa u adeegsan kartaa hore waa usoo aragnay control plus baalki lna waa u adeegsan kartaa argument left side argument right side aa lakala yidhahdaa waa sidaas u qabsa ayadan waxaa jiro waxa la yidhaha control plus s xogaa qorayda xogta aa qorayda waxaad rabtaa inaad safgarid inta badanna control plus s taas waa wax ugu badan ee isticmaalo haddii control plus s markaa wax yar aa qortid control plus s tira control plus s tira adoo xataa weliba haylaad saarin ama control a dhin haddaa control plus s tira xogtaadu way ku safgaroosmi doontaayo computer hadii uu kaa damo xogta meeshadii ayay kaaga sii socon doontaa waayahay waxaa jiro waxa la yidhaha control plus t control plus t waxay tahay new tab markaa artid inaad tab tira ama maaragtay aad meel cusub aad tagtid wax yar aad ka sikid qoraalka qorid wax yar aad ka sikid waxaad taaban doontaa control plus t oo new tab ayaa la yidhahdaa maalin ayaa wada baraadkay doonaayo dhammaantood waan samayn doonaa waxaa jiro waxa la yidhaha control plus u underline qoraalka abaartay aa qoraydi ayaa wax arta inaad hoos ka xarido ciwaanaa qoraydi tusaale ahaan ama magacaad qoraydi magac markaa qortid casraa wada dhararagsaa u waday dhahda waxaa kasoo galay magaca axmed faarax oo kale qoraaga casharkan waa axmed faarax ama waxaa soo jeedinaya axmed faarax oo kale artid briseskaad diyaarinaysa waxaa arta arday kugu xigay inaa arday hebel tira markaa si aad u aqoonsatid hadhow aad ugu weyn waxaad samaydaa saddexdan midkood inaad isticmaashid ardayga magaciisa markaad control plus b aad bold ka dhigtid kadibna aad color u yeeshid si alex ugu saaciso waxaad isticmaali kartaa inaad tiraad control plus u oo aad hoosta ka saartid xariiqtin si aad hadhow ugu soo xasuusto waxaad isticmaali kartaa inaad tiraadid control plus I oo italic tiraadid la casharkan kale caadi kugu qornay oo nan italic ku ahay markaa aragtid waxaa xarafkan jiifjiifo ama magacaan jiifjiifo waxaad u calaameyd ama italic ugu dhigtay ayaa soo xasuusto doontaa control plus u marka waxaa la yidhahdaa underline hoosta ka xariiq waxaa jiro waxaa la yidhaha control plus v oo ah basti xogaa waday inaad meel ku basti garaydaa rabtaa folderaa waday inaad meel ku basti garaydaa rabtaa video waday inaad meel ku basti garaydaa rabtaa marka maxaa isticmaalaynaa shortcutka la yidhahdo control plus v oo dhihi mayna right click dheh kadibna basti dheh ma dhihi doono waxaa dhihi doonaa control plus v waxaa jiro waxaa loo yaqaano control plus w oo ah close window shaqadan aa wadido dhan iga xirdaa arti inaad tiraad waxaa dhahaysaa control plus w waa close window waxaa jiro waxaa la yidhaha control plus x oo ah cut xogay rabta inaad jirtid warqad meel ku taala ayaa desktop kuu saarta waxaa rabtaa inaad gelidid file marka waxaa isticmaalaynaa waxaa loo yaqaano control plus x oo ah cut ayay la micnata waxaa jiro waxaa la yidhaha control plus y oo ah redo tusaale ahaan redodaas ayaa hal example ka bixinaa folderkaanaa tuuray folderka fileka markaa tuuray waxaan rabaa inaad dib usoo ceshto waxaa isticmaalaa waxaa la yaqaano control plus control z ayaa isticmaala oo waa kan hadda meesha ayaa ugu soo noqday haddii aan iraaday ta aad u tagay aa iri dileedna maxaa isticmaalaa control y ayaa isticmaala hadda daa red kelig iraaday okay raalli noqda saaxiibyaal waxa uu rabo waa file macnaha filekan ayaa hadda isticmaalaya ugu qoranta ayaan dileeda markaan tuuro wuxuu leeyahay red keligaa dhaha meel banaan tagay red kelig ayaa dhaha meesha maxaa ugu jeedaa tusaale ahaan halkan maxaa ugu jeedaa undo delete si aad dib ugu soo ceshtid fileka aad delete control plus z isticmaal uu leeyahay control plus z isticmaal waa kana hagaag marka waxaa jiro waxa la yidhaha control plus y oo ah redo ama inaa wixii dib usoo ceshtid control zna waa u isticmaali karta hagaag waayahay waxaan baran doonaa qodobka inoo xigo muxuu yahay hadda waxaan baranay computer keyboard case information xogta oo ka turjuma ama waxa uu ka saabsan yahay keyboardka waa baranay sidoo kale waxaan baranay waxaa loo yaqaano shortcutka ayaan baranay bal waxaa noo saddexeey doona ama noo xigi doona maxay yihiin qodobka noo saddexeey ama noo xigi doona ayaa waxuu yaasaan fila keyboard bahalka waxaa loo yaqaano muuska iyo waxa loo isticmaalo muuskan hadda isticmaalayno iyo waxa loo isticmaalo waayo qodobka inoo xiga ama qodobka lixaad ahna qodobka ugu dambeeya cashirkeena maanta wuxuu ku yidhahda tables mouse qaybta uu ka kooban yahay muuskan qaybaha uu ka kooban yahay also mouse is used waxaa loo isticmaala muuska ayadana waan baran doonaayo cashir ayaa nooga diyaarsan waxaa geedaa hal masawirkan gey waxaan rabnaa inaan horta balbarno horta muuska lagu sheegaa waa kan baalkan u samaysa sida dooliga ayaa waxaa la yidhahdaa muus fiiladaas ka baxayso muuska maxay noo qabataa cable ayaa la yidhahdaa fiiladaas cable
cabelkaas waxaa la yidhahda connect to USB waxaan u isticmaalnaa USB ahaan port to on computer waxaan ugu xirnaa qaybta sare boorta computerka qaybta sare ee computerka ayaan ugu xirnaa anagoo isticmaalayno USB ahaan markaasna computerka ayaan u shaqaynaa badhankan dhexda ku yaala badhankan scroll la yidhahdaa badhankan dhexda ku yaala maxaa la scroll up scroll down ayaa la yidhahdaa marna kor ayuu wax u wadi karaa marna hoos ayuu u wadi karaa waxaa ujeeda alfiyaas oo leeyahay hadaa hore u wadid waxaa waa dhehenaa up haddii oo gadaal u socdana waxaa dhehenaa down marka muxuu yidhahda to scroll up or down the page or menu macnaha casra ku dhex jirta inaad casirka ku dhex jirto inaad kor aadid ama aad hoos aadid waxaa kuu sahlay ayaa maxaa la yidhahda scroll upkaas tusaale ahaan hadda waxaa u socdaa kor maxaa isticmaala scroll up isticmaala waxaa u socdaa hoos maxaa isticmaala scroll down ayaa isticmaala hagaag saxbiyaal marka horta bal badhankaasna waxa oo qabto halkaas ku dhakab ku dhe oo kaa fakani cablekan iyo badhankan ayaan baranay hagaag waxaa jiro labadan garab aa u kala jeedi oo mid walba falaart aan ka bixin garabkan midig ayaan ku hormarayaa waxaa la yidhahdaa right click hadii lagu yidhaahdo waxaad doontid waxaad isticmaalaysaa garabkaas midig marka hadda aan samaynayno waxa loo yaqaano new file markaan samaynayno waxaan isticmaalaynaa right click oo markaasna waxaan soo dooranaynaa fileka aan rabno to new tagno ayaan kasoo dooranaynaa haddii lagu yidhaahdo left clickna waa dhinacaan bidix waa kaa left clickna waa dhinacaan bidix maanta waxaan filayaa casirkeena ahay computer basic lesson 5 maanta inaan wax badan ka fahmnay haddii ay ahaa lahayd how to save data waan fahnay maanta waxaan kaloo fahnay waxaa loo yaqaano how to select save location data markaad save gareeya si loo doorto meesha aad ku save gareyna waxaa kaloo jiro waxa la yidhahda how to word document PDF by using word sida warqadda loogu bedelo PDF adigoo isticmaalaya waxa loo yaqaano word ayadana waa baran waxaa kaloo jiro waxa la yidhahdo shortcut control A to Z ayadana waa baranay oo inta badan shortcutyada aan isticmaalayno waa baranay waxaa kaloo jiro waxa la yidhahdo computer keyboard case information computerkan keyboardkiisa iyo waxa uu ka kooban yahay ayadana waan baranay wax ku saabsan waa helnay waxaa jiro waxa la yidhahdo tabs mouse also mouse is used mouse-kan hadda idin soo sheegay iyo waxa loo isticmaalo inta qayb uu ka kooban yahay waxa loo isticmaalo waan baranay oo wuxuu ka koobnaa waxa la yidhahdo cable uu ka koobnaay wuxuu ka koobnaay waxa la yidhahdo right click iyo waxa la yidhahdo left click ayuu ka koobnaay sidoo kale waxa u weli waxa la yidhahdo scroll up or scroll maartay down waxa la yidhahdo ayaa jiray oo intaas ayuu ka koobnaay keyboardka muska saxbiyaad casirkeeni maanta ee ahay lesson 5 ee computer basic halkaas ayuu noogu egyahay ogaa maartay wixii cilada ama farsamaan ka raali noqdo waa lagu sameeyaa maanta way naga taalaaye ka raali noqdo saaxiibiya tareynta ka gaar doona casirka xiga waa dhamaantoona dhamaanteedii isma dhaafno